waxaan ahay qabalaha meesha magaalada ilaa iyo inta imise sano iyo raray gabigeeni magaaladu waxay ahayd xagga luuqa dhexdiisa cishadii qayb baa la furfuraayo la raraa maalinka cirku doo ayay noogu sii daran tahay dhibaatada ay waxa goday 40 guri daadka qaaday dadna uu ku dhintay 30 qof baa ku dhimatay 30 qof baa ku dhimatay gabiga oo gabiga ay qaaday guriyaha wuxuu raray 40 guri wax gurmad oo dawlad ay noo qabatay ma garanayno wixii noo yimiday ee lacagaha inta la eegay 30 milyan ku cunay wuxuu noo qoday gal ciyaalku ku madho imika loo heegan yahay ciyaalka oo la joojiyo ayaana noo qoday intiyo galkiina noo joojiyeen cagaftii waxa dinta leeyo walaal la qaado naga tagay hadda kadib wax dibna noogu yimaadana ma arag dhibaatada gabiga nagu hayo dad shacab ah dhulka degan oo Itoobiya ah hadii aan hay ana soo gaaro gurmad hanana soo gaaro ana naga duwa gabiga waan leenahay aad iyo aad baad u mahadsantahay bismillah alxamdulillah salatu wassalamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam waan islaamay adduunyada daafeeyga dadka joogo dhamaan salaamay ee baaq ayagan inaan madaragtay ay gaaraan aan doonayno waa Faarax Ruble Axmed oo jooga maanta magaalada Afcase waxa weeyaan xaqiiqdan waxaan ka taabanayaa horta sida uu ninka ku sheegay 40 guri waa inta dhacday weeyaan inta dam uu la magaalada waxay ahayd boocda Soomaaliyeed boocda ay ilaa geedaha ay aqalada hayeen horta saddex col baa jirto col cas col madow iyo col cad laba col wayna haysataa horta magaalada gaar ahaan laba col baa Ilaahay dul dhigay colka madow waa ragga oo waa wax galbeedka city oo dhan ba haysta waan la qabnaa koow umad baan la qabto gaar ahaan tani waxay gaar maaragtay hantan Ilaahay ugu salliday waa col cad waa biyo waa toga adeegaysiin 90 guri weeyaan sababteeda meeshan 40 dhintay iyo 50 la furfuray 50 kii la furfuray xaqana looma wicin deema magaalada laga dhax bixi oo cilla la degi xaqqa baa la geeyay waa la sii hor socdaa hal majar isku duuduubo 30 milyan baa qadaraaska lagu soo qaatay dawladda deegaanka hadday wax noo qabanayso dadkii 30 milyan ay siisay wax ka qabanay horta waxba nooma qabanayso umadaha kale ham maqlaan u baaleen wax dawladdu wax noo qabanayso ma jirto luuqani way ka wada talawdaa dawladdu deegaanka madaxweynaha Mustafa Maxamed Umarna uu ka talaabay xataa uu arkay luuqan magaala soo raray marka waxaan leenahay on baaqa u diranaynaa haddii wax laga qabanayo waa kaas gabi 30 milyan sida uu walaalkeen soo sheegay dadka 30 qof ee dhintay galka la qoday waa ka duwaynaa gabiga la yiri iyo inta badan ku dhintay dashi waxaan ka codsanaynaa dawladda galkii uu naga aasto gabi bayna naga duwine galkii 30 milyan ay ku galkii 30 milyan qadaraaska ay ku qaadatay ee 18 qof ay ku dhimatay yaa rabbi galkii uu naga aasto galkii uu naga aasto horta wata koobaad haddii kalena sidii loogu talagalay in xillaa hadhay hal la isdaafiyo biyaha naga duwo waxa weeyaan murtida isku duuduubo daadku waa ka 9 aqal baa sababtiisa in dhacday in guurtaba aan la tusaynaa waxaana mashquuliyoona aamusiye cabashadiisa oo aan u badin weynay mushkilo kale na haysato la og yahay iyana haysatay maahine kaniba horta ku maartay kaaba naga xune hana naga qabto faaraxo xukuumaddu in badan inay ogeyn baa laga yaabaa mashruuca la bixiyay inta og iyo intaan ogeynba gabagabadii maadaama dhibtani dhib taagan tahay waxaad oranaysaa xukuumadda si kulmiyaaday maadaama arriga dhib taagan oo laga maarmayn haddaan xanaan wadna iyo haddaan ammaan wadnaba wax meeshii iska taagan u yahay waxaan leeyahay ka waantooda xukuumaddu maartay wixii hore oo hadda isku tagto oo andaraas hadday dad siisa iyo hadday siininba hadda ha siisa dadka wax naga duwan leenahay hadda hana naga duwo aad iyo aad u maasantahay bismillahir rahmaanir rahiim magacayga waxaa la yahay Muuse Geesaale waxaan ka cabanaynaa ama saan qayladhaanta ka bixinaynaa oo dhibaato nagu haya 8 iyo 10 sanadood in waxa dhibaato nagu haya gabiga baa dhibaato nagu haya cabashadiisa waan badinay waan ku qaylinay haddana wali gabiga xanuunkiisa waan hayaa sidii buu noogu taagan yahay dhibaatadiisa dawladda waanu sheegnay waan ku cabaadnay waan cabanay
haddana dhibaatadii gaadhigii sidii bay noo haysataa sidii bay noo hor joogtaa sidii buu noo wataa waxaan qayladhaanta ka bixinaynaa in gebiga noo soo gurmado oo dawladda dhexe iyo gobolku iyo reeso maamulku iyo degmadu intuba inay naga qabtaan gebiga iyaan ku qaylinaynaa oo sheegaynaa hadda hana noo soo gurmado gebiga hana naga qabto naxariista ilaahay way badatay way da'day kolkay waxaa yimaadeenna dhibaatadii way sii beertay waxaas baan ka cabanaynaa hana noo soo gurmado hadalkayga ha lagu foorasado hana naga kiciya baan leenahay hadda ka hor waxaan maqalay in lacag badan oo 30 milyan ama dhowr iyo 30 milyan lagu bixiyay oo dadka magaalada waa laga weeciyay leeydi lacagtii lagu bixiyay iyo maxaa la yiraahdaa dadaalkii iyo cagaftii la keenay maxay qabatay hadda ka hor waxaan maqalay in 30 milyan oo dollarka Itoobiya in lagu bixiyay oo haddana waxay qabatay oo cagaftii la keenay oo haddana ay ma shaqaynayso leeydi oo halkii laga cishaday oo dhibaatadii sidii noo haysato ay noo dul taalo iyaan ka cabanaynaa oo ka qaylinaynaa gurmadka baan doonaynaa in naga soo gurmado oo naga soo gaaro hadda maadaama waqti roobaad tahay magaaladuna ay halis ugu jirto daadadkan iyo nimcooyinka rabbi wax baaqa iyo fariina oo u dirayso dawladda deegaanka Soomaalida maadaama mas'uuliyad ay ka saaran tahay dadka magaalada inay ka weeciso baaqa dirayso muxuu noqonayaa baaqan dirayay maanta ilaahay naxariista uu furay way da'aysaa hadda xoogii waagu hore dadku soo yeeshay ama gebigu uu soo ordayay ku kasii daran buu soo kacay uu soo ordayaa waxaan baaqa u dirayaa dawladda sare iyo dawladda dhexe iyo dawladda hoose iyo qabalaha inta ay u dhaxaysa in la iska kaashado oo naga qabto geedigii sidii buu noo wataa baaqan u dirayay baaqa weeyaan aad iyo aad baad u mahadsantahay ay adaa mudan magaca dhalinta faasay walaasha ka hadleen culimada ka hadleen annagtii dhalinta raacinaya cabashada aan wadana maanta waa gebiga ilaa 30 sano uu nahay saasaan muddo dib aqal badan ma inta la soo sheegay laakiin laba mar buu mashruuca fashilmay laba mashruuc hal mashruuc ka milyan iyo bar degmada lagu qorsheeyay waa la qoday waa ka isagu fashilmo dad uma ku dhintay wax loo mahay ciyaalkeena ku gurma walba tagaala mashruuca deegaanka hal mar ma ku faraxnay 30 milyan maalintii la qabtay waan faraxnay laakiin maanta waan ka mirgiso 30 milyan waxna kama hayno nabana soo gaari dhibaato mu noo soo diiday labada mar baa lagu fashilmay annaga 30 milyan iska daay 15 milyan baan tirin kartaa haaf marka loo qaybiso 30 milyan 10 milyan bar baa inta tirisay way ka hafto injineerada maalintii qodayna ay yiri 30 milyan hatta magaalada ka fudud waa been injineerka halka qoday 1 milyan ku dayay ku mookoray inta tiriyay waa injineer ka 30 milyan yirina waa injineer annaga haaf baan ugu filan dawladda 15 milyan aan noo sii deyso 30 kala iska baqashay 10 kala iska qaatay 15 milyan anaga duuda halka naga duuda labada mashruuc asaas ku fashilmay ama intaas ku soo gabeynaya dhibta guriga badan buu sameeyay baa leeyahay dadku madaxdu oo guurtay ilaa imse guriga ku qiyaasaysa guriyaha waxaan waa shaqaasha konto way guuray afarta way tagalaba dadka ugu dambeysay hatta reportiga waa laga helay hospitaalka halka way Soomaaliya habeen saas ku dhacday wayna ka dhimatay halka qofka gebiga sabab intaas way dhimatay iyo galkaas oo laba caruur leeyahay intaas oo naga qabta meesha toodada isku wadaro gebiga kaas wuxuu nasabay saddex qof dhimasho meesha la qoday iyo inta kale guriyaha guurtay ala kulli xaal soo dalkaas waa sabab shaqaasha ka guurin wanaag guurtay labada dawladdu hatta meesha kullu inta soo 15 milyan dad uma naga laysay waxba inoo qaban dadkaygu way naga laysay waxba inoo qaban ugu dambeyn gabagabadii waxaad baaqsi guud tolkeen ciise weyniyo iyo dawladda si guud maxaad ugu diray maadaama dhibaatadani dhexdu ay magaalada afcasa ay haysato dhammaan dawladda inta ogay laba mashruuc ee la bixiyay mashruuc fashil sidiisa ma inuu arag mashruuc waa ka haafka laga qabtay wakii degmada waxaan leenahay laba mashruuc Soomaaliyiinta dhammaan laba mashruuc naga soo inta dawladda ogay inta kaleba maanta waa kala xishbay inuu saaranay in la xishaarada waxa ma sheekayna noo soo gurmadaan aad iyo aad صح aad iyo aad magacaaga qablaha fasakamada markaas gebiga way u saameeyay markaas anagoo gebigan markii hore uu dib u ku hayo dadka shacabka oo waxyaabo uu guriyaal badan u laayay haddana imka colaadii iyo wixii baan naga daroon ku jeesanay haddaan gebigii ka hadli lahaynba colaadii imka
deegu colaadu nagaga socdo haddana gebigii baa deegan gurihiisa nuga duduminayo waa ka imika iska daa intuu gurihii dhaafay miskiidkii baa imika jirta waxa ka hadhay waa aqal weyn miskiidkii dhanaa magaalada waa aqal waxa ka hadhay xagga waxa guriga ku dhintay waa meelaha 40 guri way dhintay 50 gurina waa la furtay dad waxay habeenkii dad mooga oo wadada inay iska maraan doonaya gebiga ka dhacayo inta qof ku jirtay iyo inta qof marka xukuumaddu haddii ay madaragtay ay u soo jeedo oo dadka shacabka waa iyaga xukumo annaga iyaga naga xukumo oo hoos imana ma haday in ay hagaajiso ugu tala gasho 2 daqiiqo lama qaadan karto laakiin waxani waa xukuumad haddii ay u soo jeesato waxa la qaadan karta male laakiin annagu waxaan xukuumadda u sheegaynaa oo u sheegaynaa oo ugu celinaynaa in ay madaragtay cadaalad ay simaan ay dadkan colaadana dhan naga haysto dhan gebi naga haysto dadku gebiga iska daa gebiga wixii ku dhintay dadka intay wadada socdaan gebiga ka dhacaya ka badan kowdhe xukuumaddu inay cadaalad u samayso ay madaragtay ay isku taxallujiso gebiga inay naga weeciso ayaan isku daynaa iyaan ka codsanayna waa sax weeyaan aad iyo aad